waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed inaan u cadeyno howliyaadka howlgalkii Samakaab ciidanka booliiska Soomaaliyeed gaar ahaan qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir uu waday maalmihii ugu dambeeyay lagana waday magaalada Muqdisho. howlgalkan intii uu socday feeskiisa koowaad waxqabadkiisa bulshada waa loo soo bandhigay. waxaan rabnaa maantana inaan la wadaagno wajigiisa labaad feeskiisa labaad oo aan joogno saldhigga Xamar Jajab inaan u cadeyno kiisaska ku cusub 48 saac la soo dhaafay uu ku soo kordhay howlgalka Samakaab. maanta waxaan rabnaa inaan bulshada u bayaanino maxaabiistaas idin muuqda ee kaamirooyinkiina ay qabanayaan iyo waxyaabaha daraagiska hortiina yaala. waxyaabahaas waxay ka mid ahaayeen 48 saac wax la soo qabtay. waxa ugu muhiimsan waxyaabaha 48 saacadood ee la soo dhaafay la soo qabtay gacan ku dhiigliyaal eedaysana ku ah kiiskii saldhigga Kaaraan degmada Kaaraan. waxyaabihii laga soo qabtay aan rabaa bulshada Soomaaliyeed inaan u cadeeyo gacan ku dhiigliyaal ku eedaysna kiiskii Macalin Nuur Jimcaale oo eedaysana ka mid ah oo lagu raad joogay oo asagana gacanta lagu soo dhigay. eedaysanahaas oo qiray waliba in kuwii hore xirnaa iyo asagaba ay ka mid yihiin dadkii dilka geystay ay afkooda ka cadeeyeen. sidoo kale degmada Kaaraan saldhigga booliiska operationka Samakaab waxa lagu soo qabtay gacan ku dhiiglihii dilay askarigii xoogga dalka Soomaaliyeed ee lagu digay degmadaas Kaaraan oo hadda gacanta lagu haayo asagana. sidoo kale degmada Kaaraan waxa lagu soo qabtay mid ka mid ah ciyaal weerada oo dhaawacay mid kale oo ciyaal weera ahaa oo dhaawaciisa uu yaalo saldhigga Kaysanay oo asagana gacanta lagu soo dhigay kadib markii gacan ku dhiig dhibanaha oo isbitaalka jooga tilmaamo laga helay iyo raad raaci ciidanka booliiska Soomaaliyeed. dhibanahana dhaawaciisa wuxuu yaalaa isbitaalka Kaysanay dhaawac geystihiina gacanta lagu hayaa degmada Kaaraan way dhacdadaas. sidoo kale eedaysanayaal ku eedaysan kufsi ay u geysteen gabar Soomaaliyeed degmada Kaaraan ayaa asna laga soo qabtay. isla maanta waxa loo gudbiyay hoggaanka baarista dambiyada CID ayuu ku xiran yahay. kiisaska kufsiga waxyaabaha waxay ka mid yihiin xasaasiga la rabo in isla markii maxkamadda la waafajiyo. wuxuu saldhigga Kaaraan operationka intii lagu jiray soo qabtay 4 burcad ah oo moobeelo dhacaysay ayagoo ku gudi jira isla faragaransii gacanta lagu soo dhigay. waxaan rabnaa saldhigga Hiliwaana waxa lagu soo qabtay 4 burcad ah horay dhac ugu geystay degmooyinka Kaaraan iyo Yaaqshiid. dhammaan cadeymihii iyo marqaatigii markii la helay raadkii booliisku uu raacayay waxa la soo qabtay 4 burcad ahayd ee ku xubweysneed labada bistoolad ayagii labadooda bistoolad waxa lagu hayaa degmada Hiliwaa. sidoo kale Boolsal Huludaag asagana wuxuu soo qabtay 3 qof oo ku eedaysan iibinta daraagiska iyo daraagiskoodii. waxaan rabaa operationka inaan ugu faa'iideysto waxa jiray mootooyin badan oo aan ku raad joognay oo saldhigga Yaaqshiid yaala oo baafin ku jiray oo dhac geystay dil geystay horeyna u fakaday ilaa 10 mooto waaye oo sawiradooda sida waraaqahaas ay kaga muuqdaan waxay yaalaan saldhigga Yaaqshiid. waxaan bulshada Soomaaliyeed rabaa inaan 3 fariimood u dirno maanta. waxyaabihii inta howlgalka ku jirnay aan kula kulannay waxa ka mid ah fariinta koowaad oo ah hooyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Banaadir ee dhashay dhalinyarada ciyaal weeraha kama imaan cirka waxa dhalay hooyo. sidoo kale intii aan operation ku jirnay waxa aragnay guryo ay u kireysan yihiin dhalinyaro 9 u degan 10 iyo 4 u degan oo u kireysan hooyooyinkoodana magaalada dhinac ka degan. arintaas waxay dib ku tahay ammaanka iyo waxbarashada ubadka. sida waalidiintu waxaan uga digaynaa waalid walba inuu ubadkiisa ka warhayo ee hadhow uu ku calaalin saldhigyada booliiska iridooda. qof walba wiilka aad dhashay la soco macalinka iyo waalidka xiriir si uga dhaxeeyo muhiim waaye si nolosha loo ilaaliyo. sidoo kale waxaan u digaynaa dadka u imaanaya eedaysanayaasha ku xiran saldhigyada mootooyinka lama bixinaya mooto lagu soo qabtay operationkan Samakaab intii lagu guda jiro ilaa maxkamadda iyo garsoorka ay go'aan ka gaaraan. waxaan uga digaynaa qof walba ee ku raad jooga ama raba
in dembiile lagu soo qabtay howlgalkan samakaab saldhig ka doonto waxaan ugu bishaaraynaynaa inaan la ogolaan doonin eedaysana burcad ciyaal weero gaangister dil dhac mooto la dhacay ama wax dhacday eedaysana ah ee saldhig joogto operationka samakaab wuxuu leeyahay bar laga hogaamiyo madax u qaas ah operationka intuu socdo lama ogolaan doono eedaysana lagu soo qabtay in la sii daayo sidoo kale waxaan la ogolaan doonin mooto ama waxyaabo lamid ah oo lagu soo qabtayna lama sii dayn doono cidii ku howlan waxaan leenahay waad hungowday ee ka noqo waxaan jecelnahay bulshada Soomaaliyeed iyo saxaafadaba inaan la wadaagno muddadii yarayd ee howlgalkan samakaab uu socday magaalada Muqdisho waxa laga hakiyay dhaqdhaqaaqa mootooyinka xilliga habeenkii ah wali waxa jira dad ku howlan xaafadaha hoose inay marmaraan ciidanka booliiska Soomaaliyeed goob kasta ay joogaan mootooyin badan ayaa lagu soo qabtay howlgalka intuu socday amarkii jibiyay waa u digaynaa milkiilaha mootada mooto aad leedahay haddii ay jibiso sharciga ma ugu daba imaan doonto saldhig ama goob sharciya la geeyay mooto walba waxaan uga digaynaa 6 saac haday ku dhacdo mootada lagu arko ayadoo taagan ama shaqaynaysa waxay u guftay sharciga waxaana la waafaqi doonaa sharciga cid walba mooto iska leh waxa uga digaynaa inay sharcigaas ka warhayaan ilaaliyaan dadka dhalinyarada ah ee degan guryaha degmooyinka ayadoo hooyadiisa yaaqshi degan tahay ayaa waxa laga yaabaa inuu ku sheegto inuu iskuulkii waxbarashada ka fog yahay ee uu guri ka kireysto xamar jajab dhalinyarada laba iyo saddex guryaha u degan aan ugu tagnay ayagoo waxyaabaha daraagiska ku isticmaalaya waalidiintana u sheegaya inay waxbarasho ku maqan yihiin waalido waxaan ku leenahay waxaan aragnay waa wax laga naxo ee ubadka ka warhaya kana warqaba dhammaan saxaafadda iyo bulshada Soomaaliyeedna waxaan leenahay wada shaqayntii muddada gaabneed aan la wadeen waa wada shaqaynaa ku qanacsannahay saxaafadda Soomaaliyeedna waxaan leeyahay waa mahadsantihiin